markaad la kulanta qof aad jeceshahay ama aad ka heshay ahaw sida aad tahay sababtoo ah sidaadu ayaad ku qurux badan tahay ha iska dhigin wax aadan adiga ahayn sababtoo ah jilitaanka waa fashilka bilowgiisa haddii aad tahay qof jecel degnaanta ha iska dhigin qof fudfudud si aad ula jaanqaaddo qofka kale haddii aad tahay qof ay aamusnaantiisu badan tahay ha iska dhigin qof sheeko badan haddii aad tahay qof aan dhaqaalo ahaan aan waxba haysan ha iska dhigin qof taajir ah muuji kartidaada iyo fikirkaaga qofka ku jecel xaaladaada sida ay tahay ayuu kugu ogolaanayaa jaceylkuna macnihiisu wuxuu yahay in la isku waara inta nolosha ay ka harsan tahay haddii aad maanta jisho ama aad iska dhigto qof aadan adiga ahayn sow ma ogid in ugu dambayn qofku wuu ku ogaanaya sida aad tahay markaasina kalsoonidu ay yaraanayso khilaafka qoyskan uu soo degdegayo soomaaliduna waxay ku mahmahdaa beentaada hore runtaada dambe ayay u baas leedahay sida ugu wanaagsan waxay tahay in dabeecadahaada aadan qarin qofka kalena uu kugu aqbal sida aad tahay sax waad dadaalaysaa waxaad isku dayaysaa inaad noqoto qof wanaajiya dhaqamadiisa waxaad u muujinaysaa qofka aad jeceshahay wanaaggaaga iyo quruxda aad leedahay laakiin ahaw adiga markaasi waxaad helaysaa qof kugu munaasab ah lamaanuhuna waxay isku yihiin laba qof isdhammaystira dhinac walba ugu dambayn jaceylku wuxuu abuuraa qurux oo dhan wuxuuna qofka dhex dejiyaa deganaansho